caalamkan aynu joogno siiba casrigan aynu ku sugannahay ayaa ah mid aad ku arkaysid waxyaabo ku cajab geliya. awoodda caruurta daahoodu ay ka hooseyso dhowr iyo 10 jirada ayaa waxa la aaminsanaay in ay awoodoodu amba xoogoodu uu ka hooseeyo dadka 20-meeyada ka sareeya. waxaanu barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa 5 caruur ee inta loo yahay caalamka ugu awoodda badan. السلام عليكم كنا سو دواada janalka dadweynaha waxaana idin la socodsiinaya walaalkiin Mukhtaar muddo ka maqneen hawada duruufo jira awgeed dib baynu isugu soo laabanay mar kale halkii baynu barnaamijyada ka sii wadanaa insha Allah. Yang Jinglo wiilkan yar waxa uu ka soo jeedaa dalka China gaar ahaan magaalada Shuizhiha. haddaba wiilkan yari waxyaabahu awoodo waxa kamid ah in uu gawaadhida riixo isagoo isticmaalaya xadhko. sidoo kale waxa uu awoodaa in uu tunka ku qaado kiishash ay miisaankoodu gaadhayaan 100 kilogram. waxa uu awoodaa in uu xambaaro uu dhabarka ku qaado aabihii. waxaasoo dhan waxa uu sameeyay iyada oo da'diisu tahay 7 sano oo kaliya. Ryusi Amai wiilkan yar isagoo ay da'diisu tahay 6 sano ayaa waxa uu ka soo muuqday baraha ay bulshadu ku wada xidhiidhaan. fiidiyoogii uu Bruce Lee xarakaadkiisa uu ka daba sameynayay filimkiisii Game of Death amba ciyaarta dhimashada. intaasi kadib waxa uu bilaabay in uu ku celceliyo ciyaarta uu ka koobiyeynayo amba uu ka daba sameynayo TV-ga. wiilkan yar ayaa waxyaabaha uu awoodo waxa kamid ah in uu ku jimicsado 2 farood oo kaliya. Claudio Strode wiilkan yar ayaa waxa uu jaahaysada ku qaaday in uu kor u qaado miisaan dhan 4 jeer laab miisaankiisa. waana arrinka ay dadka jidhkooda dhisa badankoodu ay la daala dhacayaan in ay xaqiijiyaan. Juniano ayaa isagu se runtii ah cunug aad u awood badan indhaha caalamkana aad u soo jiitay. waxyaabaha la yaabka leh uu wiilkan yar sameeyay waxa kamid ah inuu 4 qaruurood intuu dhigo uu ku jimicsan karo. sidoo kalena wuxuu awoodaa inuu hal gacan ku jimicsado isagoo aan lugtiisu dhulka oolin iyo waxyaabo kale badan. ka ugu dambeeya waa Richard Satright wiilkan yar waxa uu noqday cunuga ugu awoodda badan caalamka. waxa uu ku dhashay dalka Ukraine 1982 kadibna waxa loo wareejiyay dalka Mareykanka halkaas uu ku qaatay tababaro askarinimo. wiilka yar markii ay da'diisu gaadhay 6 sano waxa wiilka yar awood u yeeshay inuu qaado miisaan dhan 82 kilogram. balse markii da'diisu gaadhay 8 sano waxa uu awood u yeeshay inuu qaado miisaan dhan 3 jeer laab miisaankiisa ku soo laabta. hadda ugu mahadsantiin saaxiibayaal daawashadiina nagana raali ahaada intaynu hawada ka maqnayn haddeena ku xinaada insha Allah subscribe noo saarna janalka dadweynaha waan idin salaaminaa. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت كمل نقول جنالك الدوينها سبسكرايب سار أو نقص صغير وحد إنه تهدر تغيير دي رجلي.